mudane soo dhawow waxaanu rabnaa inaanu falanqeyno shirkii halkan ku soo gabagaboobay galabta lagu soo gabagabeeyay 11 qodob ayaa dabcan ka soo baxay qodobo masiirka Puntland iyo masiirka ummadda Soomaaliyeed taabanaya ku jiray siiba markaanu fiirino qodobka wada jirka iyo midnimada ummadda Puntland iyo xuduudaha Puntland maqan inay halkaas soo hoosgalayaan sidee bay kula muuqataa 11 qodob ee galabta soo baxay bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cali Cabdi Cali kana mid ahaa ergadii ka soo qayb gashay shirweynaha wada tashiga Puntland guud ahaan horta shirku si fiican ayuu noogu bilowday galabtana si fiican ayuu noogu soo gabagaboobay run ahaantii waana soo dhaweynayaa waxay ahaayeen qodobo oo masiiriya oo run ahaantii dan u ah Puntland state iyo heer federaalba haddii aan ku horeeyo shalay waxaan ka doodnay ajandihii oo naloo qaybiyey dhammaan ergada ka timi gobolada haddii aan ku horeeyo midnimada waa laga hadlay communiqueguna run ahaantii waa ka muuqday oo ahayd in la helo Puntland in xuduudaheeda la sugo oo gobolada maqan lagu soo celiyo si kasta wada hadal iyo wada xaajood si kastaba ha ahaatee in lagu soo celiyo sidoo kale midnimada waxaa lagu xoojin karo oo la isla tilmaamay in dadka aan matalaada ku lahayn ama beelaha matalaada ku lahayn in maxay ahaydeen cabashadooda la dhageysto waxna looga qabto mid ka mida waxaaba moodaa inay waqtigu u xaliyey taas oo ah dad badan ayaa wax yiraahdaan waxaa jira beelo badan oo aan ku lahayn matalaada golaha shacabka taasna hadda waxaa looga gudbay oo sanadkan la sameeyey saa ogsoontihiinba guddiga doorashooyinka marka waxaan isleeyahay already taas waa ay xalisantay oo waa in ay dadka ama beelaha dega Puntland ay ka qayb qaataan hirgelinta in la gaaro qof iyo codkiis taas ayaan uga gudubnay waxaana la isla qaatay teeramka ku xiga in aanan baarlamaanka lagu soo dooran hab qabiil ah balse lagu soo doorto cod qof walba codkiisa inuu waxa weeye qiimo yeesho balse waxaan rabaa inaan ku daro sidaas oo kale waxaa jira golaha wakiilada inaysan ku lahayn marka waxaan soo jeedinay maadaama taas xal loo helay waqtigeedana la sugayo hadda waxaa loo baahan yahay in golaha wakiilada ay matalaad ku helaan maadaama iyadoo aysan hadda ku xirnayn one vote one man inta laga gaarayo already hadda waxaa harsan 3 sano iyo wamazaada marka inay iyagu ay ka helaan golihii xukuumadda ayna sugaan one vote one man ay markaas ay ku soo galaan golihii wakiilada run ahaantii sidoo kale waxaa la falanqeeyey amniga aad baa loo falanqeeyey waana la isla qaatay in xuduudaha Puntland la sugo in waxa weeye hubka dhigis la sameeyo beelaha ama dadka uu gacanta ugu jiro hubka sharci darrada ah dawladana iyada ayaa kolley istiraatiijiyadii jeexi doonta annaguna shacab ahaan waxaa looga baahan yahay in dawladda gacan lagu siiyo arintaas sidoo kale in la xoojiyo amniga gudaha iyo dibaddaba sidoo kale waxaa laga hadlay horumar badan ayaa ka jira Puntland intii ay jirtay oo la gaaray haddii ahaan lahayd wadooyin iyo haddii ay ahaan lahayd eerabooro dekado laakiinse waxaa la isla qiray in meelaha qaarkood ay ka jiraan gaab sida wadada burburtay ee Boosaaso iyo Gaalkacyo loona baahan yahay in la dhammaystiro sidoo kale in la dhammaystiro dekada Garaacad dekada Boosaaso wax laga qabto iyo wadooyin kale oo badan oo markii lagu xusay meesha ay ka mid ahayd Ceel Daahir iyo Ceergaabo in la dhammaystiro wadooyin badan oo hadda aan halkan ku soo koobi karin oo socda iyo kuwa hadda bilow ah in la dhammaystiro dimuqraadiyiinta run ahaantii dawladdan waxa ay credit ku qaadatay inay tahay dawladda kaliya ee sanadkii ugu horeysay soo magacawday guddiga doorashooyinka budgetna u sameysay run ahaantiina guddigu aad iyo aad ay u shaqaynayaan wacyigelintooda ayay bilaabeen sidoo kale waxa ay bilaabeen diiwaangelintii su'aal baan rabaa ka weydiiyo markaynu arrimaha gudaha inta kaga gudubno Puntland waxaynu aadaynaa dhinaca federaalka qodobada federaalka quseeya markaad eegtay shirweyne ayaa lagu baaqay dabcan shirkaana shir ayuu dhalay maxay kula muuqataa shirkaas iyo mar horeba waxaynu arkaynaa in ay soo dhaweeyeen xubnaha mucaaradka ee dawladda federaalka run ahaantii
aad iyo aad ayaa shacabka reer puntland u soo dhoweeyey markii federaalka laga hadlayo kolley waxaa jira waxyaabo laysku haysto oo dowladda federaalka rur ahaantii lagu haysto oo ka mid ah inay sharciyo iyagu keligeed ay iska ansixisanayso